waxaan salaan qiimo badan halkan uga soo gudbinayaa maanta ay ku beegan tahay labadii bishii Muharram 1445 oo shalay ay ahayd sanadkii hijriyada ee cusbaa oo shalay noo dhashay isla markaasna ah 20kii bisha 7aad 2023 inaan maanta halkan aan joogno akademiyadii General Kahiye oo hay'adda booliiska ay nagu marti gelisay oo taliyaheedii oo fadhiyo iyo saraakiishii sarsare taliyihii qaybta guud gudoomiyaha ururka haweenka qaranka ururka haweenka gobolka Banaadir degmooyinkii gudoomiyaashii degmooyinka iyo bahda Baanbayda bahda saxaafadda iyo hobaladii halkan ka heesta ka soo gudbinayay intaba waxaan leeyahay marka hore iga gudooma salaan qiimo badan oo ah salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaan kadib wixii la dhihi lahaa ayadoo suugaan ah nawaal lagu cabiray taliyaashii iga horeeyay taliyihii booliiska iyo taliyihii qaybta guud ayaa ayaguna ka dhawaajiyay maanta waxaan isugu nimid ishaleeshiinta inaan ishaleeshiisiino booliiska iyo bulshada ishaleeshiisiinta booliiska iyo bulshada iyadoo heesana waa noola sheegay oo la yiri si loo maaragtay bulshay la shaqeey booliiska anigana waxaan leeyahay shirib yar oo aan ku daraayo oo aan leeyahay booliiska iyo bulshadu hadday isbiirsadaan beledkaani waa badbaadayaa waxaa la yidhi 3 qodob oo muhiim ah ayaa mudan in la iska kaashado waxaana soo martay xilli bulshada ciday wuxuu sheegan ay leeyihiin haddii aan sheegno cadowgaan haddaan sheegno waxba laga qaban maayo deedna kii wax ka sheegay intuu dib ugu soo laabto uu yidhaahdo haye isheegtay waana ku maqlay inaad wax iga sheegtay maanta ay kula taallaa ee laga argoosto waxaan filaynaa qodobkaasi inaan ka soo gudubnay oo aan helayna maanta hay'ado amni ee diyaar u ah iyo garsoor marsiinaya xaqa uu leeyahay qofkaasi marsiinayo inaan waqtigeeda joogno dawladda oo mas'uulka ka yahay madaxweyne xasan sheekh ra'iisul wasaarena uu ka yahay xamse cabdi barre waa ogsoontihiin qodobada ay ka dhawaajiyeen intaba waxay isugu tagayaan badqabka bulshada isugu tagayaan maxaa yeelay haddii cadowina halala dagaalamo la yiri kor iyo hoos haddii la yiraahdo corruptionkii musuqmaasuqii iyo xaaraantii iyo qashinkii dadkan lagu wareerina lagala dagaalamaayo maandooriyii ummadayna la degana lagala dagaalamaayo waxaan isugu nimidna maanta intaas ay tahay soo waxaan wax ka qaban karna maan haddaan gacmaha isqabsanno gabadha iyo wiilka iyo gudoomiyaha degmada iyo taliyaha saldhiga iyo taliyaha nabad sugidda iyo haddii gacmaha la isqabsado waxaan aaminsanahay inaan cadowga ka guulaysan karno laakiin waxay u baahan tahay karti awood caqli iyo dhiiranaanshay u baahan tahay haddii hadda anoo meeshaan taagan aan dhagax tuuro dhagaxaasna iraada taleesul baan u wadaa gacanteed intay gaartana aan tuuro masluubo ku dhaca mase gabadha xagga fadhido ku dhacaya yaa kala yaqaan bulshadaas oo ku dhacaya dadkaas oo ku dhacaya hadafkayga marka waa inaan dadkaas qof kamida aan waxyeelayn diloon dhaawace kaliya ma aan taliya marka kuwa wax soo tuuraayo hoobiyaasha macmalka ay soo tuuraayo ama miinada dhigaayo ama dadka soo weeraraayo waxay u jeedaan bulshadan Soomaaliyeed ee muslimka ah ee tawxiidsato ee salaado
soonto inay baabi'iyaan rabaan saan la wada socona nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam nin saxaabiyo usaama binu zayd la yidhaahdo ayaa nin markaasi gaal ahaayey kasoo horjeeda dagaalamayey ay seeftiisu dhaafsanayeen ayaa wuxuu qabsaday tawxiidka markii xoogaa intuu geed ku gambado uu istiri allay leh markaasuu uri laa ilaaha ila allah muxammadu rasuulullah usaama binu zayd ninkii kama istaagine seeftii uu ku dhiftay ninkii uu dilay rasuulka markii loo tago uri nabi maxamedow usaama wuxuu dilay nin tawxiidsanaayo usaama u yeeray rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maxaad u dishay ninka tawxiidsanaayey usaamow markaasuu yidhi yaa nabiyullah wou ku gambanaayey runka ma ahaynuu yidhi markaasuu yidhi adiga yaa kuu sheegay inaysan runka ahayn ashaqaqta qalbigiisa miyaad jeexday yidhi bacda an laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah markuu yidhi kadib maad dishay yidhi haa adiga maa qalbigiisa jeexo yidhi waa maya markaasuu yidhi markuu tawxiidsada kadib miyaad dishay haa usaama binu zayd kelmaddaasi meeluu dhigtoo waaye ilaa uu ka toobo keeno yaa qof muslim ah dilkeeda iyo dhiiggeedoo la galo adduunkan oo dhan oo zuulo ayay la mid tahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo kacbada sharafta badneedoo suusho la mid tahay leeray qof muslima dhiiggiisa in la galo bale iska dhaaf inaad qora ku taagtaa dembi ah inaad busoolad ku taagtaa dembi ah inaad waran ku taagtaa dembi ah inaad xabad ku dhufato iska dhaaf annaga dilkii isaga kayna dhex yaacay waxbaa la dilay ciidanaa wax dilaa la leeyahay waxbaa la dilay mid mooryaanaa wax dilaa la leeyahay waxbaa la dilay shabaabaa wax dilaa la leeyahay dilku markaas wuxuu noqonayaa isku mid laakiin midka khawaarijtu ay geysanayaan wuu ka khasaare badan yahay maxaa yeelay qarax intaasoo kunoo qofood hal mar ku dhiman karto ayay dadka ku samaynayaan waxaa fursad noo ammaanta buluuskii hortayna taagtaagan oo kula ikaasho inaan kaasho weyna waa nasiib darro shirkaani maanta uu ka dhigan yahay inaan gacmaha isqabsanno oo aanan cadowgeyna uusan ku gambanin gadaashayna haddii aad u jeeddo mas cunug yarna halkaas ou fadhiyo ma waxaa kula gudboon maskaasi inaad cunuga ka celiso cunugana meesha ka kacaa tidhaahdo mase waa ka aamusaysaa ka aamusi mayse haddaad damiir leedahay calaa kulli xaal waxaa lagaa maarmaan ah inaan iska kaashanno midka dilayga ah ee doqonka ah ee daciifka ah ee diinlaabaha ah inaan iska kaashanno waa lagaa maarmaan haddii aan taas ku guulaysanno dalkaynu wuu noo badbaadayaa horumaraana gaaraynaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaan ciidan cusub aan tababarayno oo kumaanda taliska booliiska oo go-aan qaatay inuu dhallinyaro akhlaaq leh diin leh aqoon leh dadnimo leh in ciidanka lagu soo boydiyo waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa waxaad haysatiin maanta shacab soomaaliyeeday gaar ahaan booliiska dad idiin heellan hoggaan wanaagsan inay idinku hoggaamiyaan idinkuna soo dhex barbaaray oo taliyihiina ka mid yahay alfursa lan tatakarrar oo yidhi carabtay tidhaahdaa fursadu sooma laalaabato fursadda aan ka faa'iidaysanno maxaa yeelay shalay hadday ku dhaafto maantay kula joogtaa dowlad u diyaar ah inay dadkeeda iyo dalkeeda inay difaacdo badbaadiso dowlad u diyaara inay korrubshanka la dagaalanto dowlad la diyaara inay maandooriyaha la dagaalanto dowlad u diyaara inay dalkan hormariso ayaad maanta haysatiin ma ogid inaad bir heli doonto marka waxaan aaminsanahay aniga arrintaasi inay u baahan tahay isla jaanqaadid ay isla jaan qaadaan bulshada iyo booliiska marka bulshaday la shaqay booliiska meel kasta markaan joogo anigu waa sheegaa maxaa yeelay intaas waa itaabataa heestaasi intaasaan ka qabsaday marka calaa kulli xaal waa mahadsantihiin
مرلبادي مرسدحات وحنوجا ما علينا مانتا هوشان اللي سوء أبابولي وأبابولك باللوجي سواي رقنا لكن لا نهاجره وحكى السؤال قرحان انتان باللونه أنا دنا كذا قاعنا ما جوكتينه ما نكسل قارنه وما سنتين سومالد waxay dhihi jirtay go'aan dawladeed afar maalmood waa afar maalmood aan ka bedelno darooga la dagaalamayna dhahnay waxay ku leeyihiin maalmo hore waxaaga qarso afar maalmood kadib waa iska caadi dukaamada sida la soo dhigaya annaga waxaan rabnaa inaan daba joogno ka daba mintidno qof shacaba wuxuu ku leeyahay boona lay gooyay boonadana waxa ku qoran $100 waxaana la qaada $1,000 oo leeyahay wuxuu soo sheegaa mar xiriir fadal kala dhaceen markaas ma yiraahdo lacagtaada iga qaado kuma qoran meeshaane ama lacagteedii soo celi ama